magaalada Hargeysa ee toosinta iyo wadatashiga qaranka ayaa maanta si jireed ku qabteen hotelka Xaraf ee magaalada Hargeysa waxay si wada jir ah uga hadleen eedamihii maalmihii u dambeeyay xukuumadda iyo qaar ka mid ah salaadiintu ay hawada u marinayeen iyagoo oo faahfaahin ka bixiyay golaha toosinta iyo wadatashiga qaranka iyo waxyaabaha uu ku saleysan yahay waxaana ay sheegeen in golahani uu aasaasan yahay danta shacbiga una aasaasen markii arkeen hawshii qaranka oo isku dhaxyaacsan labadii dal ee Soomaaliya iyo Somaliland oo isku milmay waa siday hadalka u dhigeen waxaana ay si cad u sheegeen inaanay marnaba ka laaban doonin asaasitaanka golahooda iyagoo oo xukuumadda ugu baaqay in ay ka jawaabto eedamihii ay golahu hore ugu soo jeediyeen injineer Maxamed Xaashi Cilmi Mujaahid Dhagaweyne Maxamed Cismaan Bulqaas oo xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada iyo xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa waxay si isku mid ah u sheegeen in golaha wadatashiga iyo toosinta qaranka ay hore ugu dhawaaqeen aanay marnaba ka noqon doonin hadaladoodina waxa ka mid ah sida tan eed cad baan u soo jeedinay oo qoran oo 16 haddaanu been sheegayno halkaa soo dhigeen magac bay ku wareegayaan maanta golaha isku magacaabay kan war waxaanu idinka socon maayaan waxa idinka soconaya danka jawaabo waxa tidaahaan waxa ma qabno tuug baa taw lacagtii ummadda haddaan ku gunay ka jawaabtay annaga soo cadeynayna iyadoo tafaasiil la qoraan leh waxaanu kugu nidhi golayaashii baad kufsatay iyo sharciyaddii waddankaad baabiisay maxkamadii ma jirto jaraa'idkii baad caburisay weeyaan waarka nooga jawaab waxaa tidaahaa maan caburin waxaan shalayta maqlaayay maxkamaddaa la tago waxa la yidhi muddadii bisha haydad nagu xukuntay way naga dhammaatay isagoo soo daayay mooye maxkamaddii ayay tidhi isagoo ogolaada mooye sharciyaddii ma shaqayn karto warme dadkan kharash baa ku socda wariyaal baa u jooga qalab bay leeyihiin waa ilaa intay dumaysa waan haynayaa weeyaan taasna cid xaq u lihi ma jirto waa maxkamaddeenu sheegaynay dastuurkii baad baabiisay golayaasha qarankaad baabiisay waxa weeye dan uga jawaab mid walba uu waqti dhaafo sharciyad kuma fadhiyo kiisa keliya mar haddii maxkamaddii baabaa tahay labadii golle waqtigii ka dhacay isaga keliya sharci ma noqon karo doorasho ma qaban karo inagu yidhi dub baan u dhigay war afartii xaaladood ee dub loogu dhigi lahaa maad gelin ma haysin aafada qaranka dee adigu ridoo dagaalid haddaba ta waxa la yidhaa ee iminka soo baxay ee ay muxuu ahaa Soomaaliya oo inaguna aynu xaggooda ka mid nahay ay u wadaan waxaa ka mid ah in meelaha la iskaga soo dhaweyn karo in la sameeyo oo tadriijiyan federal muxuu ahaa la inoo geliyo waxaa ka mid ah hawada ta loo soo socdaa waa baddayana isgaadhsiinta waa waxyaalaha kalluumaysiga waa waxyaalaha la doonayo inay new dealkaasi oo Soomaaliya loo samaynayo inaynu ka qaybnahay oo tii u horeysay soo dhamaatay isahayn war xabeed ahayn waa eray Soomaaliya oo qof full of Soomaaliya ku hadlaaba yaqaan waxa uu yahay ayaa madaxdeennii golayaashii sharci dejinta gudiyada joogtada iyo madaxdoodii ay si qaldan oo aad muddo dadkeen caqligooda ku ciyaarayaan u macneynayaan shirkani jireeday wuxuu ku soo beegmay xilli bulshada Soomaaliland ay aragtiyo kala gedisan ka bixiyeen ururkani iyaga oo bulshada qaar ay soo